kusoo dhawaada qaybtii labaad ee qisadii taxanaha inoo ahayd ee la magac baxday jacaylkii foorida. inta aynan bilaabin qaybta labaad bal aynu idin yara xasuusino halkii ay inoo maraysay qaybta koowaad. saadaq oo u yimid canab oo meel taagan geed hoostiisa, kolkaa ayuu salaamay, iyana waa ay ka guddoontay. qaybta labaad ee qisada la magac baxday jacaylkii foorida waxay ku bilaabanaysaa sida tan. saadaq ayaa wuxuu yidhi, caafimaadka ka waran walaal? canab ayaa ku jawaabtay, fiican aboowe, alxamdulilah. saadaq ayaa wuxuu yidhi, waa ilaah mahadii. canab, mar weliba waxaan jeclaa inaan ku salaamo oo aan kula kaftamo, haddana waan ka baqayay arrinkaasi. canab ayaa tidhi, oo maxaa u baqaysay aboowe? waa islaami kartaa, waana ila sheekaysan kartaa. weliba waxaan nahay 2 qof oo isku fasal ah, waa muhiim in laysa sii barto weliba. intay canab hadlaysay, saadaq wuxuu daawanayay wejiga quruxda badan ee canab, iyada oo aanan toos u eegaynin oo xishood uu ka muuqdo. saadaq wuxuu dareemay farxad jirkiisa oo dhan hal mar wada saaqday. farxad darteed ayuuna kala badbatay. isma lahayn canab ayaa sidan dabacsan ee naxariista leh kula hadlaysa. isaga oo farxadda laga dareemaya ayuu wuxuu yidhi, waa mahadsan tahay abaayo. ka waran haddii aan si wada jir ah u doonano cabitaan iyo quraac fudud, sidee baad u aragtaa? canab ayaa ku jawaabtay, aboowe mahadsanid, waan kaa qabaa. saadaq ayaa wuxuu yidhi, adiga oo halkan taagan inaan kaa tago oo aan keligay quraac doonto niyadda ima siinayso, ee walaal ina keen aan soo wada quraacane. canab ayaa tiri, saadaq aad baad u mahadsan tahay aboowe, anoo kula soo cunay ka soo qaad. saadaq wuxuu yidhi, waa tahay abaayo, waan kaasii tegaya, waa inoo mar kale. waadna ku mahadsan tahay sida aad ii qadarisay. canab ayaa waxay ku jawaabtay, waan isku leenahay aboowe, adigaa mudan. saadaq isagoo aad u faraxsan ayuu kasii dhaqaaqay. wuxuu aaday biibit yar oo ku tiilay dhanka kale ee laamiga si uu uga soo cuno quraac fudud. markii uu quraacanayay, waxa keliya ee maskaxdiisa ka guuxayay muuqaalka dahabiga ahaa ee canab iyo hadalladeedii dabacsanaa. waxa uu soo iftiimay rajo yar oo ah inuu jacaylkiisa si dhib yar ah uga sheegan karo canab. saadaq wuxuu bilaabay in mar weliba uu indhaha saaro canab, uu salaan naxariis iyo kalgacal laga dareemi karo ku boobo oo uu weliba la kaftamo. arrintaasoo asiga u ahayd farxad iyo guul. runtii waad dareemi kartaa farxadda aad dareemayso kolka ruux aad hawada ka caashaqday oo marka ugu horraysaba uu kula hadlo si dabacsan oo naxariis leh. canab waxa ay dareentay in saadaq uu u muujinayo xushmad aad xad dhaaf u ah, oo aad bay ula dhacday qaabka naxariista badan ee uu mar weliba uga waraysto xaaladeeda. saadaq iyo canab waxaa u bilowday sheeko, salaan iyo kaftano goos-goos ah. midba midka kale waa uu ku qanacsanaa, balse saadaq sidaasi ma moodaynin. maalin maalmaha ka mid ah ayaa markii ay ardadii soo galeen fasallada, wuxuu saadaq u jeedi waayey canab oo subaxaasi ka maqnayd iskuulka. dhowr jeer ayuu fiiriyey dhankii ay canab fadhiisan jirtay oo ahaa safka ugu horeeya dhanka midig, balse nasiib darro indhaha ma uusan saarin. isla markiiba wuxuu dareemay culays, caajis iyo murugo uusan garanaynin waxa sababay. fasalka uu la noqday mid mugdi ah oo cidhiidhi ah. wuxuu bilaabay inuu nafsadiisa su'aalo isweydiiyo. talow maxaa ku dhacay? miyay xanuunsatay? ma culays baa xaafadda ka jira? maxaa ku dhacay oo ay saakay la maqan tahay? saadaq wuxuu ahaa maqana jooga. isaga oo sidaa u fakaraya ayaa fasalkii waxaa soo galay macallinkii xisaabta oo xisada koowaad ku lahaa. macallinka sida caadadu ahayd waxa uu salaamay ardadii. wuxuu ahaa macallin bashaash ah oo kaftan badan runtii. inta uu buuggii xisaabta iyo rajistarkii saartay miiska ayuu ardaydii u soo jeestay, si kaftan ah ku jirana ula hadlay. indhaha ayuu sidaa ula raacay ardayda isaga oo dhahaya, maanta waxaa naga maqan canab, saas ma ogtihiin mise warba kama haysaan oo aniga la tabay maqnaanshaheeda? saadaq
oo ku mashquulsanaa sababta maqnaanshaha canab ayaa ku soo baraarugay magaca canab oo uu macallinka ku dhawaaqayo. Saadiq ayaa isaga oo mahadsan wuxuu la soo booday, macallin, canab way xanuunsan tahay, waxay igu tiri fasax iga qaad macallinka foomastarka ah. Hal mar ayaa ardaydii hoos ka wada guuxeen, yaa yaqaane waxa ay hoos isaga sheegayeen. Saadiq ayaa waxaa galay shaki ah in macallin Cabdiqaadir oo ah macallinkii xisaabta uu kor ka ilaashan jiray canab. Macallinkiina muxuu yidhi ama ku jawaabay ma garanaysaa? La soco qaybta 3 ee qisada la magac baxday Jacaylkii Foorida. Sheekadan waxaa idiin soo saaray idiinna soo jeedinayay anigoo ah Al-Ustaad Axmed Diiri Afrax. Waxaan idiin rajaynayaa dhammaantiin nolol farxad leh meel walba oo aad dunida ka joogtaan.